kulanti waxaan wanaagsan qiyaartayna la socotay halkani waa wacaal media anigu Cabdilcasiis Barrowa ayaa halkan idinku qabanaya barnaamij kooban aynu ka hadlayno warbaahinta iyo waliba Soomaaliya maalmihii ugu dambeysaba dalka Soomaaliya waxa uu ahaa wadan ka soo kabanaya colaado sukeeyay isla markaana hay'ado kala duwan oo warbaahineed ay warar ka tabinayeen marka laga soo tago warbaahinta maxalliga ee ku hadasha afka Soomaaliga waxa jira wariyaal kale oo ajnabi ah iyo kuwa Soomaaliyeed oo warbaahin afqalaad wax ku tabisa uga shaqeynaya gudaha dalka dad fara badan ayaa isweydiinaya xogta warbaahintaasi ay ka tabinayso gudaha dalka Soomaaliya ma yihiin kuwa la isku haleyn karay isla markaana ma yihiin kuwa waji iyo sawir quruxsan ka bixinaya Soomaaliya mararka qaarna suuragal ma tahay in wariyaasha Soomaaliya soo gala ay bixin karaan xoga ay muhiim ahayd in loo ilaaliyo qarannimada dalka si aan dhaawac soo gaarin qaranka Soomaaliya barnaamijka waxa ila falanqeynaya oo halkan ila jooga Cabdalla Axmed Muumin oo isaga warbaahinta aan Soomaalida ahayn wax ku qoraya sanadihii ugu dambeeyay isla markaana xaaladda dalka la socday sidoo kale Cabdalla waa xogayaha ururka saxafiyiinta Somali Syndicate Journalist Cabdalla en soo dhawow bal marka ugu horeysa markii loo yimaado warbaahin aan afka Soomaaliga wax ku tabin dal burbursan dibaato ku soo jiray 30 sano mudnayd wax badan in loo xeeriyo aan dunida loo soo bandhigin aan sidee looga warama هذا سؤال في عن لكن مركو قريش إن آن إسويدينا عالميا صحافته كانت كجرتها هو مركب بالشدة هي اسمها لكبية بالشدة هي هناك دولة نمو دولة نمو وحكي لما دولة نمو حيث بالشدة أو ونجيو كم إذا يسوتك تجاهن أما قيبة كم إذا بالشدة oo ku midoobay hal qoys oo weyn oo la yiraahdo qoyskaasi la yiraahdo dawlad la yiraahdo marka saxaafadu xagee kaga jirtaa waxa la yiraahdaa adduunka lagu tilmaamaa ama bariyo lagu tilmaami jiray inay tahay awoodda afraad ama awoodda maaragta ama quwadda afraad ee dalliya marka laga soo tago hay'adda sharci dejinta iyo fulinta iyo garsoorka marka laga soo tago laakiin adduunyada casriga maanta ku noolnahay waxa lagu qiyaasaa ama lagu tilmaamaa saxaafadu inay tahay ama warbaahinta inay tahay awoodda koowaad oo dalliya oo macnaheedu tahay in dal aanu shaqayn karin oo dawladnimo aan socon karin haddii aysan jirin saxaafad xor ah oo hagta tilmaanta toosisa nidaamka dawladnimada waxay tahay baabuur ku socda wado dheer oo safar dheer u socda camal ayaa lagu tilmaamaa ama lagu qiyaasaa wadadaasina ay u leedahay wadooyin kale oo ka leexleexda haddii marka saxaafaddu aanay jirin wadadaas dawladnimada ay baabuurkaas uu ku socdo waxaa suurtagal ah inuu wado qaldan ku leexdo marka saxaafaddu waxay tahay tan ifinaysa oo dhahaysa wadadu halkan ay ka qaldan tahay halkan mar xaggaa sii soco sidaa u soco tilmaamaysa waay haddii la qaldamo qaladka sheegaysa waay waata laakiin waan isla garanay waa marka warbaahintu ay ka shaqeynaysa dalkeeda xisaabtan ay ku sameynaysa hay'adaha kala duwan ee dalkaasi ka jira laakiin marka loo yimaado dal burbursan sida Soomaaliya oo kala ah dadku ay rabaan hanaan dawladnimo in loo baxo wax la soo dhoodhoobay oo muhiim ay tahay wax badan in la xeeriyo isla markaana dawladda dalka ka shaqeysa miisaaniyadeeda ay badi ay ku tiirsan tahay kaalmooyin ka yimaada wadamo shisheeye sidee looga tabin karaa war mase jiraan wax loo xeerin karo wariyaha ka shaqeynaya warbaahinta ajnabiga ah ay muhiim tahay inuu ilaaliyo mar ay reeban tahay saxaafadda xorta ma jirto oo la siin karo sabab iyo cudurdaar la dhihi karo xilligan uma baahni saxaafad xor ah xilligan ma u baahna saxaafad xor ah ma jirto mar walbaba qayb kasta sidaan kuu sheegay ama tallaabo kasta oo ka mid ah dhismaha dawladnimo iyo horumarka bulsho ku nool nolol casri ah qayb muhiim waxaa ka ah saxaafadda marka haddaanay jirin saxaafaddaasi waxay la mid tahay iyadoo qof indhaha laga xiray lagu dhex sii daayay qol mugdi ah oo markaas la yidhi soco meeshaa rabto u soco oo gaar way adag tahay qofkaas meeshuu rabo inuu gaaro way adag tahay marka saxaafadda waxay tahay aan kuu sheegay waa iftiinkii bulshada waa indhihii iyo dhegihii dadweynaha waa meeshii tilmaamaysay in bulshadu ay dhinaca saxda u socoto iyo inay dhinaca qaldan u socoto marka waxaad leedahay wariyaha ee Soomaaliya ka shaqeynaya ama idaacad maxalli ah u shaqeeyo ama wargeys caalami ah oo Soomaali ku hadlin ha u shaqeeyo
ama telefishin aan Soomaali ahayn iyo mid Soomaali wax u gudbiye waa wixii uu arkay oo jirahay inuu sheego waryuhu waa inuu mar walba ku dhagnaada runta waa inuu tilmaamaa oo uu sheegaa wax kasta oo run ah oo bulshada maaragtay u baahantay inay ogaato dhacdooyin badan oo bulshada ayna u baahnayn ay jira inay ogaadaan oo aan war ahayn oo war aan noqon sidiisana warka waxaa la yidhahdaa wax cusub xiisaha leh dabcan waa taqaanaa dhammaan definitionska ama qaacidooyinka la siiyo war la siiyo marka bulshada wax kasta oo ay xiiseynayso oo run ah waa inay heshaa xaqna waa u leedahay marka aan dib kuu celiyo dhammaan bulshooyinka adduunka ee dowladaha ku bahooba waxay samaystaan axdiyo ama wax ay bulshada ku heshiisay ama waxa la yidhaahdo social contract oo af Soomaaliga marka aan ku sheegno ama axdi ama heshiis bulsho ama dastuur sida dhehba dastuurkaas waxaa mar walba lagu qoro oo lagu sheega saxaafadda madax banaanideeda helista xogta xaq ay tahay dadweynuhu ay leeyihiin in dawladdu xogta ay hayso ay dadweynaheeda ay la wadaagto ay tahay waajib dastuuri waxaas lagu sheega halkaas marka ka fahmaysa hadii aan loo baahnayn helista xogta iyo in wariyuhu waxa uu runta ah la wadaago bulshada inaan loo baahan halkaas lagu sheegeen qodobka labaad aan meesha ku sii daro dawladda laftirkeeda dad waa annaga waa shakhsiyaadkeena shakhsiyaadku waxba ka maqan waxna way ogyihiin waxa ka maqan wasiirka kan madaxweynaha ah kan xildhibaanka ah kan ka shaqeeya degmo ka shaqeeya kan gobol ka shaqeeya qof kasta oo shaqada dawladda dhinac kaga jira wuxuu u baahan yahay subaxdii markuu soo tooso inuu helo akhbaar iyo xog uu go'aan ku qaato si wixii uu ka shaqeynay iyo bulshada wixii uu qabanayay uu ugu saleeyo waxqabadkiisii baahida bulshada tusaale haddii ay jirto degmo dalka ka mid ah oo biyo aysan ka jirin oo biyo la'aan ay ka jirto oo dadku waxay cabaan aysan helayn ama degmada ka mid dalka ka mid ah ay ka jirto xaalad caafimaad darro oo cudurro ay ka jiraan qofka caasimada jooga ama xildhibaanka ah ee degmada ka mid waxa inaan ogaan karin ama ka shaqeeya wasaaradaha ka mid ama meel ka shaqeeya marka waxa loo baahay marka xogta saxaafadda markay siiso qofkii wuxuu go'aan ku qaadanayaa xaaladan iyo baahidan taagan falcelintii laga sameyn lahaa marka qaarkood saxaafaddu waxay ka caawin kartaa helista statistics-ka numberka 3 bilood u dambeysay imisa u dhimantay jadeeco 3 bilood u dambeysay meeqa biilaa u dhimatay waa meeqa boqolkiiba xaaladda caruurta ka yar 5 sano ee ku nool dalka ee heli kara talaal heli kara waxaasoo dhan waxay tahay xogta loo baahan saxaafadda inay inta baarto cilmi baaris ka samayso soo bandhigto dawladda dadka ka shaqeeya ee hay-adahaas ku shaqada lehna intay xogta qaataan go'aan ku gaaraan oo ay yidhahdaan waxaana dhacay waxaan u baahan inaan ka jawaabo aad baad mahadsan tahay saxaafadda labaan kala qaadayna saxaafad waxay ka shaqeynaysa tahay arrimihii dalkeeda aan usoo qaadno warbaahinta madaxa bannaan ee Soomaaliyeed iyo warbaahinta Soomaaliya ka shaqeysa aan Soomaalida aysan lahayn ama Soomaalida aan la hadal laba oo kala qaadayna tan Soomaalida ay leedahay waan isla garanay tan aan Soomaalida ahayn markaan u imaado saxaafad kasta waxay ka shaqeysaa danaha dadkeeda iyo dalkeedu ay leeyihiin tusaale hay'ad kasta oo warbaahineed oo saaka Soomaaliya ka shaqeynaysa haddii ay China leedahay haddii ay Faransiisku leeyihiin haddii ay Mareykanku leeyihiin mid kasta waxa ay dalka Soomaaliya ku matashaa danta dadka wadankeeda ay u baahan yihiin aan u imaano warbaahintaas oo kale wariyaha ka shaqeynaya Soomaaliga maxaa loo baahan yahay inuu ku jaangooyo howlihiisa shaqo warbaahinta dibadda oo dhan ama international media ee dal kale ka soo waranta marka ugu horeyso kaliya Soomaaliya ma oo adduunka oo dhan marka ugu horeyso waxay xeeriyaan ama ay waardiye ka yihiin waxa ay dawladoodu sameynayso badanaana warbaahin caalami ah kama soo waranto wadan aanu dan kaga jirin interest aanay ka lahayn dalkeeda Mareykan dheh Ingiriiska dheh China dheh meel walba dheh waxay ku xiran tahay danta wadankaas uu ka leeyahay dalka kale ayay ku xiran tahay marka wax qabadkooda iyo howlahooda iyo waxa meesha ay ka